hadda Puntland waxay ka kooban tahay koylatan wasaaradood waxa kaloo jira intaas hay'adood oo madax bannaan oo qaar maartay qaabilsan yihiin wadooyinka qaar qaabilsan yihiin biyaha qaar qaabilsan yihiin korontada qaar qaabilsan yihiin isla xisaabtanka qaar qaabilsan yihiin marka hay'ad tiro badan baa jira qaar amniga qaabilsan yihiin laakiin tan degmadu intii hal la iskaga dhigay waaye marka shaqooyinka inta hay'adood oo dawladeed ee dhexe qabtaan mid kasta dhinaceeda ka qabanaysa oo doorkeeda ku leedahay haddii amni laga shaqeynayo ilaamaha amniga dhan bay la shaqeynaysaa haddii waxbarasho laga shaqeynayo waxbarashadii haddii caafimaad laga shaqeynayo caafimaadkii haddii laga shaqeynayo deegaankii haddii xanaano xoolaha laga shaqeynayo xanaanada xoolaha haddii beer laga shaqeynayo beerihii haddii ganacsi laga shaqeynayo ganacsigii haddii maana wasaaradeen inoo dhisan iyo hay'adaha madaxa bannaan oo dhan haday odha tahay odhadkii la shaqeynaysaa haday tahay muxuu ahay biyo la shaqeynaysaa haday koronto la shaqeynaysaa haday tahay hay'adaha kale oo maartay maamul wanaaga waa la shaqeynaysaa marka waa dawladda dhexe oo la soo koobay marka mas'uuliyadda dawladda dhexe oo hal institution iyo hal qof loo dhiibay iyo tiimkiisa weeye laakiin dawladda kale way ballaaran tahay way sana ballaaran tahay saasa wax keentaa marka in shaqooyinkoodu ay leeyihiin xilli ay shaqeeyaan iyo xilli ay nastaan laakiin amniga iyo degmadu xilli nasto ma laha maalinta xataa ciidka waa shaqeynaysaa maalinta muxuu ahaay waa shaqeynaysaa jimcaha waa shaqeynaysaa habeenkii waa shaqeynaysaa sababtoo xilli kasta arrin baa dhacaysa marka waa inaad arrinta ka jawaabi kartaa adiga booliskuba marka nasniin ma laha marka shaqooyinka la qabto waa shaqooyin aad u tiro badan oo inta halkan lagu soo bandhigay maaha laakiin intan waa inta waxyaalo ka mid ah waxyaalo la qabtay oo waaweynaa degmada Qardho dabcan mushkiladda ugu weyn haysatay waxay ahayd daadadkii ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaynu joognaa iyadoo daadadku si nabadgelyo inoo dhaafayaan haddana alla weyna iska leh hadday ka soo hartana bulshada Qardhood iyo waxgaradkooda iyo dawladooda iyo akhyaartooda waa iska leh arrintaas shaqo la wada qabtay oo garbaha la iska istaagay bay ahayd guushaan insha Allah waynu gaarnay anagana sharaf bay noo tahay inaan qayb ka ahayn ama hoggaan u ahayn shaqadaas inay qabsoonto sidoo kale dee adduunku marna dhamays ma noqdo waxa la adduunku markasta waa 9 marna 10 ma noqdo marka qabiyo way jirtaa barnaamijka biyo maareynta qabiya ka jirta kor in biyaha qayb laga maareeyo baa ka jirta wuxuu kale u baahan yahay biyaha kan xoog badan in laga faa'iideysto u baahan yahay waxa kale oo ka muuqatay meeshii in xoogaa qurux ahaan ay qurux badnayn meel aan dhir lahayn boor ka soo kacayo faras magaalina ku taal marka hadda waxaan qorsheynaynaa si bilicda loo hagaajiyo in aan cagaarino oo dhirayno dhinacyada toga iyo geesaskiisa meel qurux badan oo maartay indhaha u roon oo magaalo bartamaheed u fiican inay noqoto baan rajaynayaa shaqooyinka kale oo qabsoomay iyo shaqadaas isku daro dhammaantood waxay u badan yihiin isku tashi bulsho iyo khidmadda yar ama cashuurta yar ee bulshada laga qaado oo dawladdu isku celisay bay u badan yihiin waqtiga anagu ku soo aadnay laba barnaamij oo waag hore degmooyinka ka jiray haddana degmooyinka waaweyn ka jira anaguna si uma yeelan mid waxay ahayd mashaariic tiro badan baa socon jirtay waag hore kuwa lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka suuqyada dhismayaasha dawladda baa jirtay nasiib uma yeelan waxa kale oo jirtay kuwa lagu horumarinayo arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo wixii la halmaala iyadana nasiib uma aanan yeelan waxa kale oo jirtay saas oo kale mashaariic lagu horumarinayo wax soo saarka iyadana saas oo kale hadda nasiib uma aanan yeelan laakiin degmooyinka kale qaarkood way ka socdaan oo waxa quruxda badan arkaysaan waa mashaariic ka qabsoontay oo ay nasiib u yeesheen waxa kale oo degmadu waag hore lahaan jirtay muddo dheer lacag kamid ah wixii la hor ka soo bilaabatay oo loogu talagalay in amnigeeda iyo horumarkeeda lagu kabo oo si bilo ah maamulka degmadu u heli jireen iyadana inta aanu joogno nasiib uma aanan yeelan iyadoo ay saa tahay misana wixii aan qaban karnay oo isku tashi ahaa iyo dad abaabul ahaa waa sameynay waxaan sameynay guddiga horumarinta degmada guddigaas oo horumarka degmada si fiican uga qayb qaatay bulshadana ay ka qayb qaadato
oo guri walba biyo iyo koronto ay mid $1 ku daraan sidoo kale qurba joogta iyagana qayb ka ah waxa kale oo qayb ka ah bulshada ganacsatada qaybaheeda kala duwan waa bilow laakiin meel fiican bay marayaan hadda lacag 300 kun ku dhow baa koonka inay ku jirta oo bulshadu leedahay la rabana in maartay waxyaalaha hortiminta leh loogu qabto oo ay ugu horeeyaan waxyaalaha la xiriira daadadka socodka magaalada wadooyinka muhiimka ah halboolayaasha ah insha Allah iyadan dhawaan baa la soo bandhigi doonaa mid kasta qiimaha ku baxaysa iyo say u kala horeyn doonaan bulshadana insha Allah taladeeda qaybteeda ka tahay waana u furantaa inay talada qaybtooda ka qaataan sababtoo ah waxaan rabnaa inaan isku tashanno waxaynu heli karno aynu inaga maartay isweydiino kadibna wixii muhiim inoo ah aynu qabsanno waxyaalaha kale oo hadda maxaan insha Allah aan xooga saari doono waxa kamid ah amniga hadda si habeen la ah baa rondo loo sameeyaa habeen kasta labada habeenba macna habeen dhaaf baa waxa u leenahay guddiga amniga heer degmo shir amni habeenka waxaan iska warsanaa caawa xaafadaha rondo laga sameeyay maxaa caawa shaqo oo la qabtay intee wax kiisam ku soo guuleysteen shaqada soo qabsoontay sidoo kale hadda guddiyada xaafadahana waa la xiriirna waxaan dhahnaa rondadii meynitimi xaafadini ma timi ma la weynayeen annaga dowlad hoos ahaan waxaan u diyaarinay wixii imkaaniyaad ku bixi lahaa askartaas maartay rondada qabanaysa runtii saan sheegay markasta qabiyo waa jirtaa tirada ciidanka inoo shaqeeya waa kooban yihiin imkaaniyaadka haystaan waa kooban tahay insha Allah waan rajaynaynaa inaynu ciidan inta ka badan helno macnaheedu maaha dalabkeedana marar badan baa gudbinay meelo badan waa u marnay laakiin ma isan markeedii baysan noqon insha Allah laakiin waan rajaynaynaa inaan gaarno oo arintaas aan ku guuleysano sababtoo ah inaga waxa u baahannahay bulshada u baahannahay guud ahaan bulshadeena waa inay nabad ay helaan qof kasta oo inaga kamid ah waa inuu wadooyinka si nabadgelyo u mari karaa inuu magaranaysaa uu sacidnayso ka baqayn alxamdulillah nimcooyin tira badan baa haysanaa laakiin misanadee dhacdooyinkaas in iyadana xasuulino ma insha Allah rajaynaya waxa kale oo iyadana qayb ka noqon doonta arintaas iftiiminta qayb ka noqon doonta hadda ilaa 5 wado oo laamiyada waaweyn ah baa iftiimin lagu xiray oo guddiga horumarinta iyo shirkadda beebko iyo dawladda hoose iska kaashaday hadda waxaan qorsheynaynaa wadooyinka kale ilaa 6 wado inaan dhawaan iyadana iftiimintii ku xirno waxaan kale bulshada ka codsanaynaa kuna wacyigelinaynaa in kuna naga qayb qaataan rabnaa in guri kasta hortiisa laabad lagu xiro labada guri iska soo jeeda hadii mid kasta laabad leeyahay dhexdooda fal dambiyeed kama dhici karo sababtoo ah waa iftiin waxaan kale rabnaa inaan xaafadaha oo la kaashanayna dabar goyno geedkan la yiraahdo garanwaaga oo macnaha ku batay magaalada geedkan insha Allah xaafadaha qaar wada jir iyo waa ka soo dhameynay xaafadaha kale baa noo dhiman xaafad baan u wadnaa jadwal baa u leenahay xaafadaha guddiyaduna waa arinta waa naga qayb qaadanay way ku wacyigashan yihiin idinkuna naga qayb qaataan insha Allah waa rajaynaynaa sidoo kale booliiska lambarka gaaban baan u sameeynaa ama lambar maartay laga soo xiriiri karo kaasna waxaan rabnaa in laga soo xiriiro sidoo kale community police-kii waa active gareynay oo iyagoo si joogto ah oo bulshada xaafadaha ka socota si joogto ah u shaqeysaa waxa kale oo iyadana insha Allah xooga saari doonaa Soomaalidu waxay tiraahdaa Roma mile uma dhisin inaynu wixii aynu qaban karno aan isla qabanno waxyaalaha kale oo qorshaysan waxa inoo sheegay maxaa inaa ku celiyo mar rabo kaliya waxaan dul istaagayaa toga xorgoble oo ah iyadana xaafad kale oo biyo mareen ah iyadana insha Allah waa furi doonaa waxaan ka codsanaynaa bulshada inay la shaqeyso meesha biyo marayaan iyo wadadeena aan maartay la fududeeyo si uu soo noqon tii musiibada inay ku ahaan jirtay oo kale arimaha kale oo tala soo jeedinta ah madaa aqoonyahan dhaqan waxgarad haween kullu ay fadhiyaan iyaga u daynaynaa wixii tala soo jeedina waa qaadanaynaa wixii dhaliila waa qaadanaynaa wixii saxiida waa qaadanaynaa wixii su'aalna waa ka jawaabaynaa barnaamijku waa inoo furan yahay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh